Somaliland intii uu ku sii guda jiray jidka u dhaxeeya magaalooyinka Burco iyo Inaaf Madoobe ayaa si aad u diiran loogu qaabilay. deegaanka Yarowe ayaa ka mid ahaa deegaanadii sida aadka u qiimaha badan madaxweynaha Somaliland loogu soo dhaweeyay waxaana ay dadku tubnaayeen jidka hareerihiisa kuwaas oo ku dhawaaqayay ereyo soo dhaweyneed caleemo qoyan iyo calanka Somaliland u ruuxayay madaxweynaha halka madaxweynaha Somaliland uu gacan haadinayay dadkaasi. deegaanka Inaaf Madoobe oo ay ka leexato wadada u kacda dhinaca magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu markii ugu horeysay taariikhda dhagax dhigay si loo dhameystiro jidkaasi oo muddo aad u badan rafaha. wasiirada wasaaradaha warfaafinta madaxtooyada gaashaandhiga waxbarashada deegaanka wasiiru dawlaha maaliyadda iyo xubno kamid ah guddida horumarinta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay qiimaha ay leedahay dhismaha jidkaasi oo noqon doona mid taariikhda u gala madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaan. madaxweyne Axmed oo 84 sanadood horteed baa Ingiriisku ina haystay 9 sanadoodna intii afweyn aanu ina qabsan baa wadadani ay jirtay 20 sanadoodna afweyn ina haystay 20 sanadood oo aad halgamaysay oo aad SNM madaxweyne u ahaydna wadadani way jirtay. madaxweyne Axmedow maanta ilaahay kugu shimay inaad adigu dhagixii ugu horeeyay ilaa Ingiriiska ilaa maanta aad digto waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay cimrigaagana dheereeyo dalkeenana inoo xasiliyo wadadaasna sida aad dhagaxa u dhigtay maanta Ceerigaabo adigoo lugaynayo baabuurkii wato laamigii ka horeeyo aad mar labaad tagto oo ilaahaygi weynaa waaxid ahaa oo nabadgelyo kugu geeyo. jidka isku xidhay magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo oo dhererkiisu u dhan yahay 370 kilomitir ayaa ahaa mid dayacan oo aan waxba laga qabanin tan iyo inta taariikhda la og yahay waxaana ahayd caqabada ugu weyn ee haysatay horumarka gobolka Sanaag iyo deegaanada ku tirsan kiidaha gobolkaasi tan iyo xilligii gumaysiga Ingiriiska. dadweynaha gobolka Sanaag waxay mar u niyadda ku hayeen in ay arki doonaan gobolka Sanaag oo ay soo gashay wado ka soo baxday dhinaca magaalooyinka kale ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland si ay ugu xidhanto magaaladaasi. wada xumada ayaa caqabad aad u weyn ku ahayd dhibaatana ku haysay dadka deegaankaasi ku teedsan inta u dhaxaysa magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo. madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Silaan waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda ee dhabarka u rito hawsha culus ee dhismaha dhabaha dheer ee isku xidhi doona gobolada Togdheer iyo Sanaag waxaana tani ka mid ahayd qodobadii ballanqaadyadii ugu cuslaa xilligii doorashada madaxtooyada ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaan uu ballanqaaday bulshada. dadka reer Somaliland dadka ma aha qof la ismaqashin bulshada reer Somaliland baa maraya judgment iyo xakam waa bulshada ma aha position ku qofka ma sameeyo qofka position macna u yaala waxaan wadada Ceerigaabo aha qofkii hirgeliyay waxay gola murbi kalaana ma jirto madaxweynaha wuxuu ku faanaa fuliyay waxa uu ku faanaa fuliyay aniga si fuliyay أنا مدحوينها يجي ضفر سنين كيه الجريبة حدو ضفر مدحوينه bulshada aan isla tagi doonaayo waxa Ceerigaabo ka soo raacay askarta reer Somaliland haday ahayd garajadii haday ahayd shaqadii haday ahayd mushaarkii waxaan ahaa ninkii ka shaqeeyay kii hirgeliyay wax igula murbi kalaana ma jirto aniga mucaaradana waan ka hadlay askarta ilaalinteeda iyo horumarinteeda waxa weeyaan aniga sharaftayda tahay cidina yani qof walba wuxuu gashado inuu kala soo baxay waan ku kalsoonahay inta gashaday waan ku kalsoonahay wax igula murbi kalaana ma jirto. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرحت هذه وين بيتاي إلى ما تدق حديقة ودقا مهمتها دلك اسكو حريصة ودلك قيبتي سيبا دايدو عاد حقا وشفتا
oo waddooyinku ka xun yihiin oo dal qiimo iyo qayl ah inay maanta intii kale ay kala go'naato oo ay sidaa sidii waddanka looga faa'iideyn lahaa aan uga faa'iidaysan aad iyo aad baynu uga xunnahay maanta waxaa farxad inoo wadaa kulligeen inaynu bilownay inaynu arrintaa baabi'inno oo wax ka bedelno oo dalku isku xidhmo oo bari waddadaasi tagto oo ceergaabo iyo degaankeeda ay gaadho oo midcooyinka uu leeyahay iyo faa'iideenka uu leeyahay ay dalku la soo wada gaadho ummadda wada gaadho oo laysu socon karo oo laysu tegi karo insha allahu waxaan ilaahayna ka rajaynayaa inaynu hawshaas sidaynu inunkaba ku wada tashaday ama loo wada sharxayey dibad iyo guda meeshaynu joognaba aynu uga wada qayb galno ay hawshaas inoo fusho annaguna dowlad ahaan waxaanu ballan qaadanaa inanka dhinacayaga inaan waxaanu kala hadnaa aanu jirin aanu gacanta ugu weynka geysana insha allahu tacaala aad iyo aad baanu كلمتي تدوينها تفرق على حدي شليلة دارشي ودي بشاقاتي كلمتي تدوينها تفرق على حدي ay wadadaas socotay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ii idmaday inaan ahaado maareeyaha mashruuca waxaan rabaa inaan maanta meesha ka cadeeyo wadadu muddada ay socotay waxa weeye waqtiyo kala duwan ayay soo martay waxaan iminka maqlayay oo xalay saxaafadda ama ilaa maanta ku jiray warbixin wasiirkii hore oo xilliga shaqadan aan wada bilownay xilsi cali xaaji xasan oo saxaafadda ama miidiyaha ka maqlay inuu yiri mashruucaasi wax aniga ugu kooban baa wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa in ka badan 5 milyan oo dollar oo deyn ah u soo hooyay wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland sida uu sheegay maariye ku xigeenka wakaaladdan horumarinta wadooyinka isla markaana ah maamulaha dhismaha wadada Ceerigaabo waxa wasiirka cusub la wareegay 5 milyan iyo 700 oo 3 milyan ay tahay mashruuca shaqadiisa 2 milyan iyo 700 ay tahay daamurka konton iyo 2,000 foosto oo boqolkiiba 70 deyn taagan buu ahaa markii wasiirka cusub la wareegay deyn ugu taagan bay 70% marka 5 milyan iyo 700 ayaa la wareegay wasiirka cusub maariye ku xigeenka isbarbar dhig ayaa wax qabadka labada wasiir oo wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland xirsi cali xaaji xasan iyo wasiirka xilligan gacanta ku haya maamulka dhismayaasha iyo horumarinta wadooyinka ee Soomaaliland hay'adda horumarinta wadooyinkuna ay wasaaraddiisa hoos tagto mudane cali xasan maxamed cali mareexan xilligii wasiirka hore joogay waxay wadadu mareysay wadadu waxa weeye 284 kilomitir wadadu waxay mareysay xilligii wasiirkii hore 14 kilomitir oo daamur 24 kilomitir oo daamura iyo 82 kilomitir carafo maanta wadadu waxay mareysaa 105 kilomitir oo daamura 104 kilomitir oo daamura iyo wadada inteedii kale 20 kilomitir mooye inteedii kale oo aratuurkii wada yaalo laga wada shaqeeyo halka waxa ka cad in maalintii xirsi cali xasan uu ka tagay iyo maanta meeshay kala maraysaa ay aad u kala fog yihiin waxaan meesha ka cadaynayaa haweeye maalinba maalinta ka dambaysa in wax qabadku uu
kasii laban laami waddadu campaign iyo siyaasad kuma jirto waa marka realiga laga hadlayo waa waxa weeye wax qabad qaran weeye xariga markii hore waa laga jirjiri wasiirkii hore xagga saxaafadda waa laga yaabaa inuu aad u tixgelin jiray laakiin iminka haddii aanu nahay wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda horumarinta waddooyinka uma aanaan badnin saxaafadda ishu waa qarankuna cid inay ku faanto madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland maanta campaign uu diyaar uma aha waxaan u arkaa inay ku jirto waxa adigu sheegtaa aanay ahayn wax ummadda ka iibsanayo ummaddu waxay ka aragto inay tahay oo iyo ummadaada iyo dalkaaga waxa u qabatay inaad taa magacaaga iyo muuqaaga iyo ifkaaga iyo aakhiradaadaba aad ku liibaanayso laakiin waxa laga sheego inaanay oo aanay shaqadayadu maaha in wax nala ka sheego وشهد مدحوينها جمهورية الصوماليلاند يحسب كلميات. ودهم بحس علي حاج حسن وحلي كتير سن حسب معارض كاه وطني أيا إن كبدن شن سنة ضل الشقية مدحوينها جمهورية الصوماليلاند إسلام كان قاعد يروها يروى هذا الله استمرك أي كسو يرين الرجل عام كجود الصوماليلاند ياب يوقن واكم وجيه بواقع ككن الجرعان أو كده دفية كل ددي هملدي وهير جلية مدحوينها جمهورية الصوماليلاند يكتمي qorshihii xadeysnaa ee xisbiga muxaafidka ah ee talada dalka haya kulmiye uu dejiyay xilligii uu baadi goobayay talada dalka inuu qabto iyadoo xisbiga kulmiyana xilligan guulo wax ku ool ah ka soo hooyay ballanqaadkii uu bulshada xilligaasi u ballanqaaday isla markaana ay bulshadu ku dooratay xilligan oo xisbiga kulmiye uu ka qayb gali doono tartanka doorashooyinka madaxtinimada uu rajo weyn ka qabo guud ahaanba inuu ku guuleysto talada dalka iyadoo uu musharax madaxweynaha uu yahay mudane muuse biixi cabdi isla markaana uu ku xigeen u yahay cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayrici madaxweyne ku xigeenka xilligan xisbiga kulmiye ayaa guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ku leh taageerayaasha ugu mugga iyo miisaanka culus taasi oo ku kasbaday guud ahaanba waxqabad xisbigaasi intuu talada dalka hayay uu qabtay waa Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Hargeysa.